واتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel walba aad joogtaan maanta barnaamijyadan soo gudbin doon jirnay mid ka duwan ayaan nii wadnaa hadii aad ka daawan jirteen channelada 150 VAB Cajiib waxaan nii wadnaa hooyo Soomaaliyeed oo isla markaasi xanuunsanaysa oo waliba dhimarka ka xanuunsanaysa muddo dheerna xanuunsanayd sariirna ku aruurtay oo ah qof dhibana isla markaasina aad u weyn oo xanuunsan isla markaasina nolosheeda saad arki doontaan ama indhihiina ay arki doonaan qof walba oo damiir leh ee dadnimo Soomaaliyeed isla markaasina dhaqasho islaam ay ku jirto oo ka danqanayo nolosha waxayna ku nooshahay magaalada Nairobi qaasatan waxay ku nooshahay xaafadda Islii waxay ku nooshahay jidka loo yaqaan 5 Street waxa meeshan ku nool waa qoys Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo waliba dhashay 6 caruur ah iyo hooyadaas xanuunsan oo dhimarka la isla markaasina noloshooda ay adag tahay maanta markuu waxba hadlayeen igu daalin waxaan ka wareysan doonaa isla markaasina saad arkaysaanba hooyadan oo kaamirada hadan ku soo dhaweyno aad indhihiina ku arki doontaan marka hooyadani ma saxarada ma cishan karto aad ay u xanuunsan tahay waxa u xiran bambaris ay u xiran waa qofka aad arkaysaan nolosheeda aad ay u adag tahay guud ahaan marka waxaan wax weydiin doonaa waxaan wareysanaynaa dadka la tacaala mid kamid ah gabadhani waa gabadheeda balse waxaan wareysanaynaa maamadan oo ayadana qof la darisa oo inta anaga laftirkeena nagu soo xirtay oo na tustay isla markaasi magacaaga Xalima Maxamed Cabd Xalima Cartan Caynshe Xalimo waxaan ku weydiinayaa qoyskan dhibaatada haysata waa mid noocee ah qoyskan waxa haysata waa 6 qof guriga ay ku jiraan guri deeqa ma aha waa gartay nolol xun ay ku nool yihiin si fiican cunto kiilo bariis ay nus kiilo baasta oo laga keenay xaafad ma deeqada 6 qof guriga kiradiisii waxa bixin jiray nin ilmahan dhalay lacagtii uu goostay bishaan ilaahaba og xaal waa gartay hadee anagii islaan marka waxaan saas ugu danqanayaa islaannimo baan ku danqanayaa ma ahaane oo hadda waad arkaysan 1 shilin inaa u dhiibayay hadda ma arkaysay adoo waliba dad kale ka soo qaadasay waxaan ka keenay chichabi baan ka keenay bambaasa lagu soo gadayaa oo loo xirayaa bambaaska markii loo xiro way furaysaa xaarkii bay furaysaa way marsani markay marsato way qaadeen way cuneen koobkaad shaah ku siisay kaadii ku horinaysaa way cabaysaa waa gartay waa tahay ku soo laaban doona abay magacaaga xaw ilaahay horta ku saqiro xaw waa aragnaa dhibka iyo arrinka intuu la eegayay sida dhibku yahay bal xaaladda guud war naga sii wallahi muddo hooy iska xanuunsanaysa صح كل وحي لكن الحمد لله واي دمرك laga haya qaybta dhimirka laga haya muddo badan aan daaweynay hadan daaweyn u socdo madaariya la geeyay daawo dhimirka had u socoto isticmaalaysa waana kuwaas warqaday way yeelan warqadaha xanuunka waa tahay ma jirtaa marka garab ugu siisa oo adiga ku garab istaagta oo wax ku siisa oo macnaha maamadan kula garab istaagta marka laga reebo ما محلمة درس كلها ما واحد يقرب يستوي واحد يقول سيمانهن ilmaha aabayaashooda waa kala tagnay ani ilmahan isku bahma ah loo bahay kaliin صح marka dad la kala tagayna kulli waa dareemi kartaa aad naftirka saartid kama heli kartid صح maamadii marka waxa u dhar daawo xafaayad caano oo saddexdoodaba gooni in loo gado ah oo bil gooni ah صح marka wax igu toro ama wax igu siimanahan kulli wixii ilaahay qadaray bay maraysaa waa gartay ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ay muxsiniinta ah oo macnaha ayaga maxaad warsanaysaa maxaad ka codsanaysaa kulli walaalahay way maama xanuunsan waayo iska dhibana kulli inay isaacidana kulli karjeena insha Allah waa tahay sida aad arkaysaan gurigan waa 2 tilaabo asaga dhan waxaana ku nool 6 qof waxa ku nool maamadan gabadhan iyo 4 caruur ah ku nool ayaa ku nool waxaad aragtaa qof xanuunsan oo waliba dhimirka laga hayo oo waayeel ah marka xaaladan ku hayso waa arin aad u xanuun badan haddadan aan ila hadlaay saacadan aan ila hadlaayo hadii aan digsigan tuso digsigan waxa ku jira digir Soomaali ayaa ku jirta raashin kale oo ku jira malaha sida la ii sheegay ilaa iyo xalayto waxba ma karsan hadeertaan
maama Xaliimo oo ayada laftirkeeda aan isla soconno oo jidka aan ku wada kulanay ayaa ayada laftirkeeda waxay u soo heshay lacag 1,000 shilin oo ama u dhiganta $10 taasi oo ay tiri waxa loogu gadayaa baambariskeeda ayaa lagu gadayaa ama xafaayadeeda hadba saad u taqaano marka haddii aad tahay qof Soomaaliyeed damiir daqasho leh maanta waxaad haysataa fursad aad Ilaahay ugu dhawaato isla markaasina aad ku noqoto qof bili aadan adigana sadaqa ku aqriya adduun anagana sadaqa noo aqriya adduun waxaan iga codsanayaa mar iyo lababa inaad soo gaartaan hooyo Xaliimo oo ayada laftir Xabiibo oo ayadana qofkaas xanuunsan oo sariirta jiifa way iska sheekeynaysaa hadaladeeda iska hadlaysaa oo iska tarsaasinaysaa saxarada ma cishan karto waxay sameynaysaa saxarada way cunaysaa waa dareemi kartaa xanuunka intaas la eg iyo culeyska intaas la eg waa dareemi kartaan marka aad arin u adag waaye waxaan iga codsanaynaa insha Allah inaad mar waliba aad noqotaan kuwa la soo xiriira ilaahay dartii oo la soo xiriira waxaan kale oo sheegayaa in aad macnaha shaashada ka arki doontaan telefoon lambarkeeda iyo magaceeda toos waxaana ku soo qori doonaa telefoonka ay wadato gabadheeda isla markaasina aad ka arki doontaan insha Allah halkaas ayaad wax ugu soo hagaajin doontaa uma baahnid inaad aniga ila soo xiriirtid toos waxaad ula soo xiriiri doontaa hooyo Xabiibo iyo gabadheeda insha Allah gacanta ku haysa aad ayaad u mahadsantiin dhamaantiin hooyo Xabiibo Cusmaan Nuur waxa weeye qof waayeel isla markaasina aad iyo aad u tabcaana oo dhimirka la aad ayay xanuunsanayd waxa ku jirta xaalad aad u adag ma haysan raashin ay cunaan cunto dhar ay xirtaan ayadoo uu jiro qabow aad u ba'an gogol ay dhigtaan guri waxay ku jiraan markaad u fiirsato uu yahay asaga dhan 4 tilaabo ama 2 tilaabo iyo 2 tilaabo waxaana ku nool qoys dhameystiran oo 6 qof ka kooban noloshana ay ku adag tahay aad u weyn haddii aad tahay qof Soomaaliyeed oo isla markaasina u danqanaya oo aad ugu danqanaya waxaan la kulan aad arkayso waa waraaqii isbitaalka Madaari ama isbitaalka waalida looga qoray caafimaadkeeda iyo guud ahaan maamadan oo saaid u xanuunsan iyo gabadhaas aan ka tagi karin oo cid uga tagtay haysan isla markaasina nolol adag ay soo wajahday ma haystaan wax garab ama caawiya ma haystaan balse haddii aad tahay qof sadaqada jecel inuu ku bixiyo ama ummadda Soomaaliyeed ama u gargaaro hooyo Soomaaliyeed ama damiir leh aad tahay waxaan rajaynayaa inaad u gurman doontaan qoyskaas dhibaatada badan ee ku haysato magaalada Nairobi waxaad arkaysaa qoys aan wax ay karsadaan ama raashin haysan halka burkujadaasi ay ku jirto kaliya digir caadi saad u taqaano oo isla markaasina dabka u saarneed oo kaliya wax kalena aysan haysan